dabadeedna xabadaasi markay ku dhacday wixii magaasiinka baaruud yaalay ayaa qarxay kor bay u booday dabadeedna sida nuclearku dallada u noqdo oo kale ayay u noqotay nin imika ciidanka madax ka ah oo generaal u dalacay dhowaan oo la yidhaahdo doolaal ayaa ila socda oo madaafida gacanta isagu ragga yaqaanay ka shaqaynaya ayaa gaadhigii anigu aan ku jiray ee madfaca jiidayeen 19 ahaayee ninkii aanu ka soo qafaalanay uu aad uga xumaa madficii ku xidhnaa madficii baa samada galay soo gasho waa xalkii iyo xawaarihii waxa aad ka heli kartaa adeegyada internetka dhammaan laamaha iyo xarumaha ay dalka ku leedahay shirkaddu ama kala xidhiidh nambarka ah 818. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena dhacday dhigaal barnaamijka waxa isaguna toddobaadkan marti inoogu ah oo aynu barnaamijka qaybtiisii saddexaad kaga qabanayna General Ismaaciil Shaqale oo hore aynu uga soo qabanay laba qaybood oo kaga soo waramayo qaabkii uu u soo talaabay ee uu Muqdisho uga soo baxsaday jidka dheeraha uu soo maray lugtii iyo rafaadkii iyo sidii uu ku soo gaaray qaaxa iyo halkii ay sanam joogtay iyo hawshii uu qabtay markii uu ay sanam yimi iyo dagaaladii uu galay iyo hawlihii ugu horeeyay ee uu bilaabay waxa ay ku kaaxayd asaasidii dugsiga tababarka Ballacabane ee mujaahidiinta lagu tababari jiray oo 5,000 mujaahidiin ka badan ay ka soo baxeen laguna tababaray kuwaas oo dhiig cusub ku shubay halgankii SNM ee markaa socday Ismaaciil Shaqale barnaamijka ku soo dhawow mar kale halkii waynu ka sii anba qaadanaa qaybta saddexaad ee barnaamijka qaybtii hore hadaynu daawadayaasha xasuusino waxay inoogu joogtay asaaskii dugsiga tababarka Mandheera waxaa la yiraahdaa dugsigii tababarka Ballacabane oo soo gabagaboobay ciidankii ka soo baxay halka tababarka ku qaatay marka loo qaybiyay colalkii iyo furimihii iyo ay hawlgalkoodii bilaabayaan dugsigii Ismaaciil oo xirmay ciidankii waa kii gudoomiyay ururka SNM Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo xogayihii gaashaandhigga ee waqtigaas Cabdilaahi Askar ayaa xafladii xiritaanka dugsiga yimi oo kula hadlay halka ciidamadii iyo mujaahidiintii tababarku u dhamaaday sida aniguba aan goobjoog ahay oo aan taariikhda markaa la socday halkaas laga soo dhaqaaqay halkaas inuu ka bilaabaynaa maxaa xigay markaa oo loo dhaqaaqay oo ciidamadii aad soo saartay iyo saraakiishii kale iyo ciidamadii hore ee sanaba hore u sii joogay halkay u dhaqaaqeen markaa bismillaahir rahmaanir rahiim sayyidow sidaad sheegtay dugsiga mujaahidiin aynu ku qiyaasnay 5,500 ayaa ka soo baxay mujaahidiintaasina horeynu u soo sheegnay guutooyinkii ay ka koobnaayeen marka firqad waliba qayb waliba guutadii ay ka timid bay ku noqotay oo ay xoojisay ciidankaas tiradaa lahaa waad ogeydo hub wanaagsan maynaan haysanin waxa lagu hubeeyey qori aad u liito oo beebeshe la odhan jiray oo muxuu ahaa lagu galay muxuu ahaa ruushku dagaalkii koowaad uu ku galay ayaa inagu caawisay qoladii muxuu ahaa ina caawin jirtay kaasaynu sidanay dabadeedna ciidamadii waa soo dhaqaaqeen laxaadka ugu badan Hargeysa in muxuu ahaa lagu weeraro ayay noqotay waxa taa garab socday waxaynu helay oo layna siiyey madaafiic aad iyo aad waxtar u leh ayay qoladaasi qoladii macaawinaysay Itoobiyaanka inagu caawisay kuwaana tababar fiican baanu raggii siinay diyaar baanu ka dhignay kuwii hore ee ay SNM ka qabsatay cadowgana waanu isku ururinay
waxa la soo dhaqaaqay ciidankii lugta oo wata sancadii oo wata muxuu ahaa madaafiicdii Hargeysa lagu soo dhaqaaqay Hargeysa 3 aag baa laga galay bari waxa ka gashay guutadii 3aad iyo muxuu ahaa guutadii 11aad oo qaxootiyadii bari ka deganaa Hargeysa oo kii dhaamka halaya agtiisa deganaa iyo kii muxuu ahaa deganaa aw barkhadle agtiisa kuwaasi oo aan la dhayalsanayn ragga jooga oo jabhadaha ah ee hubaysan ayay ku dhaqaaqeen oo dagaal la galeen Hargeysana waxa ku soo dhaqaaqay ciidankii kale Sancaani afraad muxuu ahaa ayaa ku soo dhaqaaqay Sancaanina dushay ka soo gashay afraadna galbeed bay ka soo gasho Sheekh Cumar ayay soo degtay iyaguna ciidamadii ka soo baxay Hargeysa ee saraakiishii USC markii dambe noqday ayaa iyaguna markaas waa markay soo baxayaan weli laakiin soo may bixin ciidankaasi wuxuu ahaa ciidankii 3 kaara watay weerarkii aynu soo qaadnay oo airportka lagu weeraray oo taliskii qaybta 16aad lagu weeraray oo muxuu ahaa galbeedka Hargeysa lagu soo weeraray usbuuc baa weerarkaasi iyo rogaal celimahaasi ay socdeen waad ogeydo madaafiicdii waad la socotay oo mararka qaarkoodna raadiyowgaabad u siday madaafiicduna magaalada bartankeega iyo taliska qaybta 26aad ba aad bay u garaacaysay waxaan xusayaa maalinta la yiraahdo dhedada dagaalkii ceeriyaanta oo 3 aag dagaalku uu ka socday taliska qaybta la weeraray airportka la weeraray galbeedka magaalada la soo weeraray qoladii gantaalaha ee deganayd maalintaas Mujaahid Cabdilaahi Dirawal wuxuu watay ciidanka guutadii Sancaani iyo guuto afraad ka tirsan oo 20aad la oran jiray waxay ka galeen airportka anigu waxaan joogay Goble buur ka dambaysa airportka oo koonfur yar galbeed halka imika la dejiyay muxuu ahaa xaafada Goble soonaha ayaan joogo madaafiicda ayaa halka noo taalay madaafiic airportka madaafiicdii taalay ayaan garaacay si aanay ciidankeena lugta ee Cabdilaahi wato aanay muxuu ahaa dhibaato weyn u gaarsiin ayaan kaga daboolay waxa kale oo jirtay isla maalinta qaybta 20aad lafteeda inaan taliska garaacnay oo xiradii koofiyad casta ciidankii deganaa dhibaato weyn aynu u geysanay si kastaba ha ahaatee dib baynu haddana uga baxnay waa loo xoog sheegay waa laynoo xoog sheegtay dib baynu uga baxnay Sheekh Cumar ilaa muxuu ahaa godkii Green ilaa Dhaboolaq xareed dhulkaasaynu haddana degnay ayaynu isugu tagnay waxa xusid mudan subax maalmahaasuna madaafiicdii ciidanka SNM oo
taalay meel muxuu ahaa masallaha hoostiisa oo xaraf koonfur ugu quman inaanu subax salaadii markaanu tukannay allah u naxariistee maxamuud cabdalle iyo aniga iyo nin dhintay oo la odhan jiray muxuu ahaa jabhadda ka mid ahaayoo halkaa ciidan yar ku haystay inaanu nidhi aynu weerarno Hargeysa maanta cabdidheere aan dabadeedna halkaa subax hore ka soo dhaqaaqnay waa meesha la yidhaahdo muxuu xagal dusheeda oo buuraha hoostooda ah qori baanu soo jiidnay laag la yidhaahdo habeedley oo xaraf dusha ka ah baanu gelinay annaguna waanu soo dhaafnay sheekh cumar buurta yaree sheekh cumar waqooyiga ka xigta baanu fuulay cadeeddu markaa weli soomay bixin markii cadeeddu ay dhinac la soo baxday ayaa qorigiina maxamuud cabdallah diyaariyey ama halkaasaan tegayey raadiyooyadii iyo wixii dabadeedna xerada birjeex la yidhaa ayaanu soo toogan ilaahay baa mahad leh xabaddii aanu soo ridnay waxay ku dhacday maqaasiinkii hubkii rasaasta oo madaafiic iyo rasaas badaniba taal ayaa ilaahay ku riday maalintii la gubay carbiskii qaybta la xilaata meesha kaydka carbiska la gubay dabadeedna xabaddaasi markay ku dhacday wixii maqaasiinkaa baaruud yaalay ayaa qarxay kor bay u booday dabadeedna sida nukliyeerku dallada u noqdo oo kale ayay u noqotay waxaan gartay in halkaasi wax weyne ku qarxeen dabadeedna xabado tobaneeye ah baanu halkii iskaga dabageynay wixii baa qarxay Hargeysa ayay dhinac walba xabaddii u booday wixii Hargeysa ku noolaa oo tiro yaraa warshada kamida isugu tageenoo dabada cadaadday u yaaceen khasaarihii maalintaa dhacay Ismaaciilo dad badan waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa kii ugu weynaa gaadhay ciidamadii Siyaad Barre marka laga hadlayo xagga logistics-ka saadka hubka gaadiidka xeradii birjeex marka khasaaraha military ahaan gaadhay iyo kii magaalada gaadhay oo dee rasaastii baradadii halkaa ka qaraxday waxaa la sheegay inay magaalada ku faaftay damage-kii iyo khasaarihii ay geysatay ma ururseen tiradiisi ma garanaysaa horta sayidow inagu gudaha cid hagaagsan oo inoo joogtay oo khasaaraha tira koobaysay may jirin khasaarayaal badan oo hore oo dhacay ayuunbay tana la mid ahayd laakiin waxaa hubaala maalintaa ta ku dhacday waxay noqotay mid afkuuriso ah waxaa taliyaha qaybta 26aad ahaa oo muddo yar joogay nin la odhan jiray Cismaan Sheekh badmace ayaa la odhan jiray badmace Cismaan Sheekh wuxuu ahaa madaxii hoggaanka madaafiicda goobta ee ciidankii la odhan jiray xoogga dalka Soomaaliyeed buu in badan ahaa muddo dheer waa annagana markaanu dee shaqaynaynay wuuna xukumi jiray aadna wuu noo yaqaan inaanu madaafiicda aniga Cabdilaahi dira walba ku lug leenahayna wuuna yaqaanay inaanu aaga ku soo jirana wuuna yaqaanay in badan baa waxa lagu yiri waar 40 tuuge injir tale maad soo qabatid Cismaano maalmaha ciidan koofiyad casaho 100 dhodhow ayaa xamar inta laga keenay berbere laga soo dejiyay ayaa loo keenay Cismaan maxay ujeedadu ahayd waxa ujeedadeedu ahayd waataynu weerarnay Hargeysa waynu dul fadhinaa madaafiic aanay hore u aqoon baa lagu asqeeyay oo ay muxuu ahaa khaati ka joogsadeen sidaa daraadeed in madaafiicda iyo waxa ay qabtaan nimanka koofiyad casta oo dee fresh iyo dee bebeeye iyo karyaal inta la siiyo ay soo qabtaan bay ahayd qorshahu saas u ahaa iyagoo sidaa diyaara ayaa maqaasinadii la gubay
dabadeedna subaxii markii taasi dhacday iyadoo la jiifo ayaa dee la isku kacay oo riboodkii uu xamar siiyey ayaa noqotay in kaydkii rasaasta maqaasiinadii la gubay. canaan badan baa dhacday, waa la canaantay odaygii. war meesha amba iskaga teg baa layidhi, amba soo qabo nimankan muxuu ahaa waxaan kugu samaynaya. dabadeedna xogna wuu helay madaafiicdu halkay taallaa inay tahay meesha xagal koonfur ka xigtay buuraha masallaha hoostooda inay tahay wuu helay. ciidankii koonfeed castaahee kolkii horeba la qorsheeyey inay madaafiicda ay naga qabtaan ayuu abaabulay. laba meelood buu markaa weerar inagaga soo qaaday galabnimadii. 4tii galabnimo markay tahay oo jabhadduna hadday guulaysato dee waad garanaysaayo maalintay guul gaadho dib bay u yaaci jirtay. dee ciidankii badna dib u yaacayoo guushii ilaa kaamamka dambe ay u soo sheegayeen. aanu halkii joogno 4tii galabnimo oo aanu tukannay salaadii casar ayaa sayid cumar oo ku jirta makhaayadda inanta ayaa koloniyo boorama u socota ayaa soo martay. sayid cumar koloniyadaas ayay qabsatay, ayay dagaal la gashay. wax ka fakada iyo waxay qabteenba way noqotay. waxay qabteen gaari dacasa way qabteen, gaari sonkorana way qabteen, booyad gaasana way qabteen. sayid cumar galabtaa khasaarana waa gaadho 3 mujaahido aan ka xusaayo nin macallin ahaayo ina abdeeq la odhan jiray halkaa wuu ku dhintay. annaga jugtii iyo dagaalkii muxuu ahaa ka dhacayay makhaayadda inanta ilan opposite baanu ku noo xagal hoosteedaanu ka soo jeednaay, waanu daawanaynaa. sidaas umana gurman karo, sidaasaanu u eegnay. shawilay annagana xabadaaba afka noo saaran. sidaadii aanu kaakacnay jugtii halkaa dagaalkii si wanaagsan u qarxay iyay nagu bilaabantay. marka xaggee bay kaga yimaadeen dadka? waxay ka yimaadeen 2 waddo xaraf ka timaada. waddada xaraf tagta way mareen, deedna intay xaraf tageen ayay waqooyi nagaga yimaadeen. sayid sheekh cumarna way mareen, tii sheekh cumarna bari bay nagaga timid. labadaasiba waxay ku kulmeen ciidan yar oo aanu haysanay oo naga xigay dhinaca bariga oo 20aad ahayoo nadalo, allaha u naxariistay axmed nadalo uu madax ka yahay, ayaa weerarkii ku bilaabmay. hal jiiboo yar buu haystaa, jiibkii oon xabad laga ridin ayaa markii xabaddii bilaabantay dirawalkii ku booday, wuu istaadhmi waayey. rasaastii baaba soo gashay oo laga soo dhaqaaqay. jiibkaa waa naga qabsadeen. dabadeedna markay jiibkii qabsadeen ciidankuba 500 mitir meelahaasuu naga horreeyey. rasaastii baa madaafiicdii soo gaadhay. mujaahidiintu waa hurudaan, waa iska nasanayaan, saakana way xidideenoo waa guulaysteen. rasaasii markay bilaabantay niman active ahayn ilaa 8 midfac baanu wadanaa. waxaa halkan noo taagan gaadhi dheer oo 24 tana oo ninkii la odhan jiray muxuu ahaa gacanlow uu leeyahay, oo muxuu ahaa 4 BM oo yaryar, qoriga garaadka la yidhaaha BM-ka 12 dhuumood leh. 4 madfac baa noo saaran, halkan uu taagan yahay. xabaddiina nagu dhacday. nimankii yaryaraha mujaahidiintii waxay alla ku guuleeyey markiiba inay waxoodii dhulka yaallay raraan, oo intaan la soo gaadhinba beebeeyadii iyo waxani way soo gurxamayaan. intaan la soo gaadhinba inaanu dhaqaajinno, madfac walba gaadhuu noogu xidhan yahay, aanu dhaqaajinno. hal madfac baanu la hadhnay oo hawsara iyo gaadhi eena tiro oo hor jiidayaanu halkan ula hadhnay.
gawaadhidii kale oo dhan baanu isweydaarinonu galbeed isu weydaarinaya dhinaca Dhaboolaq dabadeedna intii aanu ka baxaynay labadii buurood dhexdoodina lagu hor joogsan lahaa waxaaba na soo galay beebeeyadii iyo taangigii iyo xabadiibaba nagu dhex dhacday madficii baanu ka furay gaadhiga dabadeedna hoos baanu ugu dhignay galabta halkaa wixii ka dhacay waxa sawiray oo hayay ninka la yidhaa Maxamuud mujaahidka sawirlaha Victoria haysta halkaasuu horta dokumentkaasoo dhamiyaala ninkaasaa hayay waxa ilaahay inoo suurtageliyey inaanu joojinno weerarkii cadowga intii dagaalka aanu ku jiray qoriga hawsarka ah weynaanu dhulka u dhigaynayna ciidamadeennii baa soo gurmado sancaani oo degan godka gireen halkaasay ka soo gurmato masallahay dusha kaga timido Sheekh Umar ayay kaga soo dhaadhaceen afraad markaa sancaani waxaa la yaalla kaarayaal saddexdii kaare sancaani bay la degan yihiin ee soo baxay sancaani marka kaarayaashaasina waa la socdaan Dhaboolaqna waxaa ka soo gurmaday afraad iyo markaas iyaguna galbeed nagaga yimaadeen galabta dagaalka gaadhigana waa naga qabsadeen askarina nagamay dilin waana gabalku wuxuu ugu dhacay iyadoo la sii eriyanayo meelaha xusida mudan ayay ka mid tahay haddaan taa iska soo dhaafo ka bixin Ismaaciilow waxa jirta sheeko mucjiso ah oo maalinta lafteeda dhacday nin baa jiray jabhada ahaayo mujaahid ahaayo maalinta ay dhimasho ahaan looga tegay inaad xusuntiin kala mooyaan oo ay baadheen oo dharkii kala baxeen sheekada ma xusunta ninka isagoo nool markii dambe la soo waxay ahayd ninkaasi halkaa jiibka lagaga tegey jiibka goobtaa jiibka lagaga tegey ciidankii jabhada ahaayee joogay ayuu ka mid ahaa dhaawac weyni ma gaadhin hase yeelee wax baa ku dhacayoo xanuun baa ku dhacayoo dabadeedna wuu suuxay way soo dul mareen waanay baadheen maydna way u haysteen laakiin markii dambe ee ay jabeen ee la dhaafiyey halkii lagu dagaalamay ee Sheekh Umar iyo Hargeysa loo soo dhaadhiciyey ayay ciidamadeennii halkaa ka heleen ninkii mujaahidkii oo soo magaciisii iyo meelu ku dilay ma haysid waa hagaag maalintaas saasay ku dhamaatay waxa xigtay subaxii dambe haddana meeshiiba sida aan ogaa aniguba de goobjoog u ahaa dib ugu noqoteen halkii madaaficda laga riday xasuusanta Dhaboolaq baa la tegey hal madfac baa subaxdii dib loo celiyey Dhaboolaq baa la tegey madfac baa dib u ceshatay waxaanu soo kaxaysanay hal madfac bartii baanu nimid waanu ku asqaynay halkii taliska laftiisa taliska qaybta ayaanu la dhacnay madficii madfac dee weyn oo hawsarahoo 122 milimitir ah oo dee aanay madaafiicda aanu la dhacaynana maalintaa dhedada ayaa meel airportka iyo ina naxar u dhaxaysa guuto kontomaad la odhan jiray oo ciidamadeenu ay jeedeen maalintaa ayaa labadaa madfacna laga qabtay aynu la dhacayna iyaga maalintaasina waxay ahayd waanu joognaaye maanaan jabin ayay lamid ahaydoo markaynu maalintii hore ka gubnay ee la yidhi soo qabta inaan layna qabana aynu nool lahay ayaanu tusaynoon muxuha sidii uun u garaacayno taasi halkaasi iyadoo ahayd waa tii dabeedna aynu laynaga xoog roonaadayno haddana dib u baxnay oo waa kuwii dabadeedna markaa kadib inaga gubi jiray allay baday lafta faraweyne ugu dambaystiina taliskii SNM muxuu ahaayeen balay gubadle waa kuwii weeraray balay gubadle allay baday haddii bilka lafta faraweyne oo muddo yaro kooban isku daba xigxigay bal qaabkay u abaabuleen
cidda hogaaminaysay waxaad moodaysay inuu qaabkoodu hadda gurileyn markaasoo isku itaal labadii jabhadood noqdeen qaabkaa bal ka sheekay wuxuu ahaa markii aynu Hargeysa dul fadhiisanay cadowga mooralkaynu kaga ciyaarayo madfac dhakada aynu kaga dhufannay iyo weerar aynu gallay iyo waxaynu ka dhufannay iyo nimankii niman aynu wareerinay ayay noqdeen waxaa la bedelay Cismaan Sheekh odayga Cismaan Sheekh muxuu ahaa aynu ka gubnay kaydka waa la bedelay Cabdilcasiis nin la yidhaa Cabdilcasiis Cali Barre oo nin dhalinyarahoo firfircoon ahaa ayaa la keenay ninkii wuu fikiray wuxuu yidhi war nimankii waa kuwanoo initiatifekii kaa qaade ku dul fadhiiste idin dul fadhiiste waxay doonaan bay marba samaynayaan nimankan waa inaad initiatifada kala wareegtaa oo halkan imika iyagu ay waxay doonaan kugu samaynayaan waa inaad muxuu ahaa awoodu iyaga ka adkaata oo jiidho moralka ka jebisa waa inaad samaysaa ninkii ciidan buu abaabushay ciidan ayuu abaabushay ciidankii markuu abaabushay ciidankaasi kaare iyo beebee iyo ciidan lug ayuu ahaa madaafiic iyo waxaasi kumay jirine kaaraha madfacu ahaa dabadeedna arabsiyo ayuu ku diyaariyey dabadeedna arabsiyu ka dhaqaaqay inagu jabhad ahaan ciidan waxaa soo huba wata umaynaa bandhigi jirin waayo awood aynu kaga hor tagno maynaan lahayn arabsiyu ka dhaqaaqay arabsiye iyo allay badayna dee wax badan isuma jiraan isla maalintiiba arabsiyu allay baday buu gaadhay allay baday wixii joogay ciidamadeennii kor bay u baxeen oo waxay galeen dabayl weyne soorihiisa ayaa la galay allay baday buu dhex fadhiistay dargadihii oo dhan bay gubeen magaaladii bay gubeen ciidamadeenna waxay awood lahaayeen waxay isugu geeyeen allay baday dusheeda dabadeedna iyadoo laga fikirayo qaabkii dagaal loola geli lahaa ayuu ka guuray markaasuu ku soo noqday muxuu ahaa arabsiyo iyo Hargeysa usbuucii dambe oo waxba amba 2 usbuuc kadib ayuu haddana abaabul kala galay oo intaynaan miyirsanba aynaan soonihiiba ka soo noqon ayuu haddana lafta Faraweyne sidii oo kale u galay waa gubay iyadana hadda marka ciidamada SNMto Faraweyne marka la eego deegaamadan ay joogeen ciidamada SNM xaraf iyo xagal iyo dhaboolaq iyo waa xaqi dambu kaga yimi waa laga xaraf iyo waa laga baxay waynu ka baxno lafta Faraweyne dharaarta uu soo gelayo waynu ka jabnay lafta Faraweyne allay badana waa laga baxay markuu laftii Faraweyne gubay ayuu dabaadna ku noqday haddana Hargeysa iyo muxuu ahaa abaabulka uu sameeyey abaabulka intii uu ku jiray ayuu weerar ku soo qaaday xaabaale oo Sancaani ku wajahan Sancaani iyo marka halkaa waxa deganaa guutadii Koodbuur ayaa soonaha ku soo wajahnayd Koodbuur iyo waxa isku qabsaday faqashdii xaabaale oo airportka koonfur kaga quman Sayid Umar afraad baa ku soo gurmatay oo intay ka soo gurmatay muxuu ahaa Cabdaroosh ayay dagaalkii soconaya soo gaadhay madaweyn ayay madaafiicdiina ka soo gurmatay dagaalka waa la isugu tegey airportka
markii dagaalka galabtii waa laga adkaaday dib bay u yaaceen hubna waa laga gubay gaari tiyaaraho suusaarin waxna waa laga gubay oo bartii lagaga reebay waxa dabadeedna halkaa dhacdo waxa jirtay aniga igu dhacday halkaa dagaalkaasi xaabaale iyadoo la degan yahay oo sidaa loo joogo ayaanu galab abaabul aan sameeyey 2 madfac oo madaafiicda dhunta dhaadheer ee difaafyada la yiraahdo xiriirsaday 2 gaari oo midna yahay muxuu mid ciidanku leeyahay ana tareeya iyo gaari muxuu 19 oo aanu ka soo qafaalay ina cunaayo meelaha ka soo qabsanay oo dhinkii lahaa aad muxuu uga xumaa galabta inaanu ka qaadno ayaanu 2 madfac ku soo xidhan imika ciidanka madax ka ahoo generaal u dalacay dhowaan oo la yidhaahdo doolaal ayaa ila socda oo madaafiicda gacanta isagu ragga yaqaanay ka shaqaynaya ahaa 2 madfac iyo 3 gaari oo technical baanu soo kaxaysanayo galbeed baanu ka wareegnayo gareebis baanu marayo wadada gareebis iyo Hargeysa isku xidhaanu soo marayo wadadan cad ee masallaha marta markaanu joogno ayaanu ka furay madaafiicdii gawaarida 2 madfac ayaanu Hargeysa dabada u qabanay gabalkuna wuu dhacayaa waayo waxa weeye si aan loo soo gaarin aanu ka fakanaan doonayna markaanu ku hurgufnayno dhowr iyo 10 xabood Hargeysa dhexdeedii ku dhufanay hadda maalinta horena dagaalkii baa dhacay ayaanu xiriirsanay waanu yaacnay waxaanu maray raadkii aanu soo maray ayaanu maray gareebis oo xagga masallaha xigta marka aanu marayno ayaa gaarigii anigu aan ku jiray ee madfaca jiidayeen 19 ka ahaayeen ninkii aanu ka soo qafaalanay oo aad uga xumaa madficii ku xidhnaa ayaa taabtay miino madficii baa samada galay waxaanu u qaadanay in inta nala soo daba galay nala toogtay marka taayirkii baanu ku soconaa shawlay madficii sidaa hayay ee kolba dhinac u yar boodayay ayaa taayirkiisii miinada taabtay waan ka soo booday gaarigii war waa layna toogtay sidaadaan u aagay gaariga xaggiisii dambe madficii ma jiro meel alla meelu madficii qabtay nasiib wanaag gaarigii wax alla wuxuu noqday kama nixin madficii la waayay waxaan ku farxay in gaarigii fayow yahay oo ninkii dee aanu ka soo qafaaleen raaliga ahayn haddii gaarigii sidaa ku dhinto dee ninkaasi wax weeye muxuu ahaa nin dhibaato weyn oo aanaan waxba ka qaban karin ku dhacday buu noqon ilaahay baa noogu xamdinay in gaarigii nool yahay taasina horta mid bay ahayd waa tii dabadeedna muxuu ahaa dib aynu u gurannay baliguudada waa tii ay soo galeen iyadana waa kuwii dee inaga gubay baliguudana waa kuwii soo galay dabadeedna halka intaadan dhaafin balgubadle marka la eego Hargeysa waa masaafo fog waa 8 kilomitir waa 80 kilo 70 meelaha waa masaafo dheer runtii ciidamadii SNM maalintaas taliskoodii baa la tegey heerku waa dharkii xaruntii SNM buu qabsaday ninkii Cabdicasiis Cali Bar wixii oo ciidan ahaa ee SNM lahayd xaguu tegey xagee lagu kala maqnaa maxaa xagee laga dhaafay horta sida waad ogtahay oo dee jabhadu noloshii ay ku nooleed waad garanaysaa mar alla marka operation ay gashana way isku soo xoomaysay way isku soo urureysay operation markuu dhamaadana cafaray brief dee nin waliba halkii ma garanaysaa bal nolol yar uun usbuuc madaxa la galo ayaa la kala yaacay waad garanaysaa waxa weeye
dagaalka xabaala markii lagu dagaalamay ee faqashta aynu halkaa aad u garaacnay ee aynu madaafiicdana galabteena dul taglaynu madaxa ka garaacnay Hargeysa gudaheedii ee aynu dib u soo baxnay jabadii inay guulaysatay haddana oo dee guul bay gaadhay dabeedna way kala yaacdo halkeedii bay ku wada kala noqotay iyadoo halkeedii ku wada kala ah ayuu dabeedna abaabulkan sameeyey kii allay baday oo kale iyo lafta farweyne uu ku gubayo warumaynaan hayne kolono dee muxuu ahaa 20 gaari oo kaare iyo beebeeya oo infantry iyo muxuu ahaa gaadiidkii kalena dhex socdo ayuu Hargeysa kaga soo baxay intaanu soo gaarin muxuu ahaa balay gubadle waqalkii baa la arkay waqalkii siigadii halkaasuu deedna soo baxay casar buu soo galay dee balay gubadle waa laga yaacay dee waad ogeed muxuu ahaa taliskii muxuu ahaa SNM iyo sidii dee ma garanaysaa raggii deganaa ilaa idaacaddii dee ay khatar gashay oo muxuu ahaa lala yaacay oo mujaahidiintii idaacaddii ay tunka ku qaadatay oo ay la gashay hawdkii la gashay horta siday u soo galeen sidaasay ahayd sidaasay ahayd waa kii dee dadna ay laayeen dadna maxaabiis odayaalla u soo qaateen taas kolkii ay dhacday waa tii abaabulkii SNM ee xoog ah isugu yimid war maskaxdan ha la bedelo ayay noqotay daba bahal waa tii la isugu tegey allah u naxariistay cali xuseen janaral cali xuseen maskax uu curiyey ayaa halkaa la isula tegey oo ahayd war intaynu Hargeysa iyo Burcaba iska dhaafno berbera inaynu beegsanno oo waa tii taasi dhacday daawadayaal intaa waxaa inoogu dhammaatay qaybtii saddexaad ee waraysigii taxanaha ahaa ee aanu la yeelanay jenaraal Ismaaciil Shaqale ee barnaamijkeena dhacdaya dhigaal ee Horyaal TV intaa ayaanu qaybtaa kusoo gabagabeynaynaa waxaa ku xigi doonta qaybta afraad oo Ismaaciil uu halkaa inooga sii amba qaadi doono sidaa iyo nabadgelyo inta aynu mar kale dib u kulmi doono